assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhowaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya maxay tahay sababta beesha uu ka soo jeedo allaha u naxariistay janaal maxamed faarax caydiid ay markaan kaga baxayso habargidir waxaan idiin soo gudbin doonaa halkaa ay sida tooska dib ugu laabanayso iyo sidoo kale arrinta siyaasadeed iyo deegaan ee ka dambeysa maxaase ka jira in hubkeeda loo adeegsan doono dagaalka lascanood iyo sidii somalilan looga adkaan lahaa weerar ku wajahan aagga magaalada xardheere ee gobolka mudug iyo sidoo kale xogaha la helayo oo muujinaya goobaha ay khatartu ka jirto in weerar lagu qaado ayaana xogihii ugu dambeeyey idinkaga soo gudbin doonaa iyo siraha qarsoon ee saraakiisha laga soo xiganayo siciidani waxa uu diiday in garoonka diyaaradaha ee garowe ay ka dhoofaan isimada s c oo magaalada muqdisho u safraya lana kulmaya xasan sheekh maxamuud lafta gareen iyo axmed midooban markaan shuruudo kala duwan ayay ku xireen howlgalka xoreynta ee deegaankooda waxa ay la safan yihiin kooxda deegaanadooda la doonayo in laga saaro mase waxay ka soo horjeedaan arrimo kale oo dowladda federaalka isku hayaan halkan ayaan idinkugu haynaa muuqaalka sharigara walaagsaar la wadaag saaxiibada aragtidaada qaybta hoose noogu reeb oo ku xirna wararka dhambaalka wararka ana ku bilowna xogaha la helaya ayaa waxa ay muujinayaan in dadaalada ku aadan hub aruursiga iyo sidoo kale habarwacashadu ay yihiin kuwo mar kale dib u bilowday iyadoo weliba ay bilowdeen dadaalo kale oo la doonayo in bilo cusub ay ugu biiraan howlgalka agga magaalada lascanood magaalada muqdisho ayay ka bilowdeen ujeedooyin kulamo looga soo horjeedo qorshaha irisamaaleynta iyadoo weliba beesha uu ka soo jeedo madaxweyne waa jenaraal maxamed faarax caydiid iyo sidoo kale maxamed xuseen roble ay iskaga baxayaan markan mid ahaanshihii beelaha habargidir ee dega gobolada bartamaha soomaaliya waxayna ku biirayaan islamarkaana ay dib ula midoobayaan halkaa horey loogu xaman jireen ay ku abtirsan jireen ee beelaha ogaadeen ee galbeedka soomaaliya iyadoo weliba xogaha la helaya ay muujinayaan in isimada labada dhinac ee ku shiraya magaalada muqdisho ay sameynayaan hanaanka isku xirnaanta deegaanada dowladda deegaanka soomaalida iyo sidoo kale gobolka mudug gaar ahaan galkacyo iyagoo ka wada shaqeynaya sidii loo sameyn lahaa iskaashi toosa iyo sidoo kale isku mid ahaanshaha dadka deegaanadaasi maadaama dhalasho iyo sidoo kale dhaqanba uu ka dhexeeyo iyadoo weliba la marayo hanaan ku aadan in ay isku tashadaan beeluhu oo ay ka wada hadlaan awoodda siyaasadeed iyo sidoo kale midda deegaan intaba horey ayaa beesha uu ka soo jeedo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare waxay samaysay dabaaldeg markii la magacaabay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen roble waxayna sheegeen in xilligaasi 60 sano kadib ay ra-iisul wasaaraha ku guuleysteen taasoo ka dhigan inay tirsanayaan ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee soomaaliya cabdulaahi ciise maxamuud waxaa sidoo kale ku xigay in lagaba soo magacaabo oo xasan sheekh maxamuud oo kasoo dhex xulo ra-iisul wasaaraha xilligaani talada haya xamse cabdi bare taasoo ka dhigan inay 3 ra-iisul wasaare ay marayaan iyadoo weliba taasi ay sii xoojisay wada dhalashada labada dhinac ee in muddaaba hoos loo dhigi jiray maadaama deegaano kala duwan iyo sidoo kale caadifado kala duwanba ay ka jireen dalka iyadoo weliba taasi ay sababtay in isbahaysiyo kale ay samaysmaan oo dhinacyadu ay ku kala abtirsadaan sida xogta aanu ku helayno beeshan degta gobolka mudug ayaa hubkeeda iyo gaadiidkeeda qeybo ka mid ah waxaa laga dalbanayaa in ay u dirto dhinaca magaalada lascanood ee gobolkaasi si ay ugu xoojiso dhaqdhaqaaqa deegaanadaasi ka socda iyadoo weliba arrintaasi fududayntooda ay ka qeyb qaadanayaan isimada ku shirsan magaalada muqdisho ee labada beelood suldaan cabdinaasir jaamacseed ayaa matalaya dhinaca gobolka mudug halka sidoo kale dhinaca kalena ay matalayaan isimo kala duwan oo laga soo xulay jigjiga islamarkaana ka shaqeynaya dib u midoobidda bindhinacyada deegaanka soomaalida iyo sidoo kale galkacyo dhinaca kalena waxaa soo ifbaxaya in siciid cabdulaahi deni uu ku gacan sayray in isimada magaalada garowe ka dhoofaya ee ku socda magaalada muqdisho ay sii wataan socdaalkooda isagoo weliba ka xun in xasan sheekh maxamuud ay la kulmayaan kaasoo u arko inuu kala furfurayo howlgalka la doonayo in lagu qabto aagga gobolka sool siciid cabdulaahi deni ayaa la xaqiijiyey in subaxnimadii hore uu ku wargeliyey dhinacyada garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale howlwadeenadaba in garaadada iyo isimadaba lagu wargeliyo inay ku sugnaadaan magaaladooda islamarkaana aynan u dhoofin magaalada muqdisho sida inoo xaqiijinayaan wararka sidoo kale la helaya siciidani
ayaa isimada ku wargeliyey in aynan jirin wax faa'iido ah oo ay kala soo kulmayaan xamar maadaama uu ku sugan yahay xamse cabdi barre iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud oo uu yaqaano inay yihiin xagaldaaciyaasha howlgalka xoreynta ee sool. waxaana sidoo kale Siciid Deni uu doonayaa in isimadu ay ku sugnaadaan Garowe ilaa Laascaanood iyadoo weliba mustaqbalka goboladaasi iyo nooca ay noqonayaan ay tahay talo u taalla beelaha harti, kuwaas oo goor horeba sameeyey isku gurmasho iyo dhaqdhaqaaq in dib loo abaabulo howlgalka maadaama culayskii doorashada Puntland uu dhammaadana waxay ka mid yihiin arrimaha Siciid Deni uu doonayo markan inuu ku qanciyo odayaasha dhaqanka. isimada qaarkood ayaa doonaya inay si toosa kaga degaan magaalada Muqdisho iyagoo ka jawaabaya ballankii ay la galeen madaxda dowladda federaalka, balse arrintaasi Deni ayaa ka cagajiidaya iyadoo weliba ay jiraan mas-uuliyiin kale oo dadaal ku bixinaysa sidii loo fasixi lahaa ergadan matalaya gobolka Sool ee Muqdisho tegaya. waxaa laga cabsi qabaa in uu dhaco weerar qorshaysan oo la doonayo in lagu beegsado xeryaha ciidamada ee ku yaala aagga magaalada Xardheere ee gobolka Mudug. wararkaanu ka helayno aagga kala duwan ee bariga gobolka Galgaduud ayaa tilmaamaya inay socdaan qorshayaal weerar oo ku wajahan aagga Xardheere iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoostaga sida deegaanada laga soo bilaabo Wisil iyo Xardheere u dhexeeya, kuwaas oo ay ku sugan yihiin ciidan dadka deegaanka oo abaabulan, kuwaas oo sanadihii ugu dambeeyey dagaal kala soo horjeeday ururka deegaanadaasi ka dagaalamayay sanadihii ugu dambeeyey, iyadoo weliba si toosa ay doonayaan inay cagta ugu mariyaan weerarkaasi si lamid ah saldhigga ciidanka midooda Afrika ee ATMIS weerarka lagu qaaday ee lagu gubay taangiyada. gaadiidka dagaalka ee culus sida hubka culus uu ku rakiban yahay ee suugaga iyo sidoo kale jiibka iyo hub kale oo culus oo ay wataan ciidamada deegaanka ee ka soo ruqaansaday magaalada Wisil ayaa ah bartilmaameedka koowaad ee la doonayo in weerar lagu qaado si loo gubo gaadiidkaasi waxna gacanta loogu dhigo. wuxuuna ka mid yahay arrimaha cabsida badan ka abuuray deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Mudug, maadaama hubbeeleedkan uu yahay mid in muddaaba la hormarinayay, sidoo kalena aynan beelaha la degaa ee la deriska ah aynan haysan hub noocaas oo kale ah, taasoo keentay in xubnaha ururku ay ilgaara ku hayaan dhaqdhaqaaqyada gaadiidka ee ka soo ruqaansaday magaalada Wisil ee koonfurta gobolka Mudug kuna sii jeeda koonfurta gobolkaasi iyo bariga gobolka Galgaduud. xogahaanu helnay ayaa muujinaya in saraakiisha hay-adaha ammaanka ee Galmudug iyo sidoo kale gobolka Mudug intaba laga doonayo inay sare u qaadaan foojignaanta, iyagoo ka foojignaanaya gaadiid loo adeegsado qaraxyo, iyadoo weliba mararka qaarkood ay suurtagal tahay in gaadiidka loo adeegsanayo weerarkaasi loo ekaysiiyo mid qaad iyo sidoo kale shixnad bal ugu soo qaado marka uu dhex istaago ciidankana waxa qorshuhu yahay la qarxiyo, iyadoo taasi ay abuuri karto khasaaro weyn oo soo gaara. kadibna waxay suurtagal ah inay weerar soo qaadaan kooxo ku sugan deegaanada hawdka ah ee ku hareeraysan goobta ciidamadaasi ay fariisanka ku leeyihiin. dhowr jeer ayay soo baxeen digniimo la xiriira arrintaasi, iyadoo weliba hay-adaha deegaanadaasi ay sameeyeen foojignaan dheeraad ah, waxayna mar fashiliyeen weerar toosa oo lagu soo waday magaalada Xardheere ee gobolka Mudug. sidoo kale waxay dhexda ka qabteen mid lamida oo la doonayay in lagu qaado aagga ciidanku ay degan yihiin ee Qaycad. dhanka kale haddii aanu eegnana lafta Gareen iyo Axmed Madoobe ayaa shuruudo kala duwan ku xiray inay dowladda gacan ka siiyaan howlgallada xoreynta ee ka socda deegaano kala duwan oo ka tirsan koonfurta ee bartamaha Soomaaliya. xogaha aanu helayna ayaa waxay tilmaamayaan in madaxweyne lafta Gareen uu ku andacooday in uunan helin dhaqaalihii loogu talagalay in ay miisaaniyad kabkeed iyo sidoo kale horumarin dhaqaale iyo deegaanba ay u isticmaasho koonfur galbeed mashaariicda oo hakad ku jirta iyo arrimo kale ayuu soo jeediya, iyadoo weliba uu muujiyey in mucaaradadii weli aan xal rasmiya laga gaarin, suurtagalna ay tahay in mar kale ay biraha soo qaataan saaxiibada xasan sheekh maxamuud, iyagoo weliba doonaya inay aasaasaan ururo iyo kooxo kala duwan oo gudaha magaalada Baydhabo lagu aasaaso. dhinaca kale madaxweyne Axmed Madoobe ayaa asna soo jeediyey in la helo taageerada dowladda federaalka, iyadoo weliba uu hoosta ka xariiqay in arrinta ugu muhiimsan ee Jubbaland ay doonayso markan ahmiyadda gaarkana ay siinaysa ay ka mid yihiin in xal loo helo mooshinka ka dhanka ah xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, iyadoo weliba Axmed Madoobe uu soo jeediyey in ra'iisul wasaaraha oo kursiga sii jooga ay suurtagal tahay in deegaanada Jubbaland dadka ku nooli ay iyagu
gulufka ka qayb qaata iyagoo weliba aan dareemaynin in loo diidan yahay jagada iyo matalaada ay ku leeyihiin dowladda federaalka. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuuna u soo jeediyey in mooshinkaasi dib loo dhigo islamarkaana meesha laga saaro, iyadoo weliba ay saaxiibada xasan sheekh maxamuud ay tahay in ay garowsadaan wadashaqeynta dowladda dhexe iyo jubbaland ka dhexaysay, iyo sidoo kale in lama taabtaan uu yahay xilkaani beel kalena laga soo magacaabi karin. muuqaalka sheergare oo like saar la wadaag saaxiibada aragtidaada qaybta hoose nagu reeb oo ku xirna wararka dhambaalka wararka nabadgelyo. assalaamu calaykum daawadayaal, kuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka